Assalaamu calaykum kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiin kusoo dhowaada wararkii Soomaaliya iyo caalamka halka channelka aad naga daawanaysaan waa SMN TV fadlan ha naga hilmaamina subscribe-ta like-ta share-ka wixii faahfaahinna comment noogu reeba aan ku bilowno wararkeena waxaa la sheegayaa ciidamada xaq-u-dirirka SCC inay soo gaarayso saanad military oo uga imaanaysa dhinacaasi Eritrea aswaaf Afwerki oo ugu deeqay hubkii ugu badnaa abid saanad military iyadoo ay ka soo degayaan ayaa la sheegayaa hubkaasi takada Garaacad iyo goobaha Mudug hubkaasi oo u socda ciidamada xaq-u-dirirka SCC hubkaasi oo ay hore u haysteen ciidamada xaq-u-dirirka SCC hubkaasi ayaa wuxuu iskugu jiraa goobaha madaafiicda loo adeegsanayo gooja cadde oo la rabo in lagu xasuuqo looga saaro ciidamada SNM-ta oo halkaasi isku urursanaya ayaa ciidamada xaq-u-dirirka hadduu hubkaasi soo gaaro waxay ballan ku qaadeen inaysan god kale yiraahdo gooja cadde ay ku dhuumanayaan ciidamada SNM-ta ay ku burburin doonaan halkaasi halka kale ayaga ciidamada SNM-ta uu taageero ay ka helayaan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa ayaa waxaa la sheegayaa in siyaasi Afwerki asagana uu ugu deeqay taageero ciidamada xaq-u-dirirka SCC ciidamada xaq-u-dirirka SCC hubka loo adeegsanayay oo lascaano lagu burburinayay ayaa ahaa da 30 ay soo dowladda dalka Jabuuti si loogu burburiyo ciidamada xaq-u-dirirka deegaanadooda SCC sidaas oo kale hubkaas oo kalena waxaa soo dhiibay siyaasi Afwerki oo u soo dhiibay ciidamada xaq-u-dirirka SCC sida ay uga helayaan garab SNM-ta dalka Jabuuti hiilada ayaa asagana wax uu garab istaagay ciidamada xaq-u-dirirka SCC dowladda Eritrea oo garab siinaysa ciidamada xaq-u-dirirka SCC sidoo kale saanada hubka uu soo dhiibay siyaasi Afwerki waxaa ka mid ah hubka loo yaqaan taangiga iyo PM-ka rasaastooda oosan meesha aysan ka marnayn oo hadday soo gaarto ay wax uga bedeli doonaan ciidamada xaq-u-dirirka SCC ciidamada ku sugan godka gooja cadde walow ciidamada xaq-u-dirirka SCC iyagana dab yar aysan shidaynin oo ay dagaalamayaan ayaa waxaa kala duwan markii dowlad ay kuugu deeqdo hub iyo rasaas iyo markii suuqa madow ka soo gadanaysa rasaas ayaa waxay kala yihiin laba farqi oo aad u weyn markii dowlad hub ay kuugu deeqdo hubkaasi markuu soo gala gacanta ciidamada SCC ayaa laga dareemi doonaa godka gooja cadde sidaan ogsoonnahay madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi Afwerki ayaa dagaal wuxuu kala dhexeeyaa madaxweynaha dowladda Jabuuti walow annaga aan ogolaanaynin dalka Jabuuti ama shacabka Jabuuti in dhibaato la gaarsiiyo laakiin kaligii taliska madaxweynaha ka dalka Jabuutiga dictator-ka ayaa baneystay dhiig daadinta ciidamada xaq-u-dirirka SCC gabadfalada ka dhacayana ka qayb qaadanaya dalka meeshaas dalka Jabuuti madaxweynaheeda Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka amar qaadanayo ama dalkaasi oo dhan hadda ay u talinayso marwadiisa u dhaxda qadraxayd sidoo kale dagaalo ba'an ayaa waxay ka socdaan galbeedka gobolka City shacabkeedana loo geysanayo gobol fadhiyo xun ay ka dambayso dowladda federaalka Itoobiya shacabka loo geysanaya dhibaatada ayaa waxay ka sii yihiin beesha Ciise halka laga soo saaray magaalooyin istiraatiiji deegaanadaas oo ka mid ah Garbe Ciise iyo Cadeeti iyo Candhuufo deegaanadaasi dhammaantood ayaa laga soo saaray shacabkii ku noolaa ee Ciise